عرضي دينتي عرنكان كبرتو كامل بكادا عوالا ودورتي markii lagu ciile xolaad kugu raagtay carradaya diintii calankaan ku gaarto horta markii khabarkii soo gaaray waxaan kasoo socday magaalada Boosaaso war baan dhageystay la leeyahay madaxweynaha Puntland wuxuu announce ama shaaciyay in la rabo in loo sameeyo Puntland calan astaan iyo heesta calanka intaan soo socday baan saddexdiiba dhameystira calankii astaantina waan sameeyay saddex astaamood baan isdhinac dhigay iyo heestii oo markaa islahaa way noqon kartaa heesta calanka calanku wuxuu ka koobnaa saddexda calan oo uu saddexda midab uu hadda leeyahay oo aan u arkay midnimada ummadda Soomaaliyeed dhexda cadaan baan geliyay cadaankaas oo aan u arkay nabad dhiil baan geliyay nabad iyo caano ma kala haraan iyo cagaarka oo barwaaqo dabadeed waxa la keenayay madaxtooyada baa markaa la keenayay qof walba wixii uu soo diyaariyay heeskii baan diyaariyay isagana astaantaan diyaariyay oo astaanta Puntland waxaan ka fikiray maxay ka midaysan yihiin dhammaan gobolada Puntland gamaanka farasku waa mid jooga meel walba oo Puntland ha ku kala yaraado ha ku kala badnaado nugaal iyo sool iyo sanaag buu u badan yahay bari waxba ka jooga mudug waxba ka jooga waa la heli karaa soo marka waxaan ka fikiray wax gobolada oo dhan ay ka midaysan yihiin waxa ay soo baxay faraska waxaan qaatay aragoostada inta xeebta lay ku ekaatay waxaan yiri dhulka xeebta lahayn marka wixii iskama arkayaan iyagii oo ma dhahayaan waxaan waxbaan ku leenahay dabadeed astaanta waxaan sameeyay calankii baan dhexgeliyay meeshii labada shabeelna waxaan ku bedelay faraska waxaan u arkaa gamaan historically dib uma socdo hore buu socdaa waxaan ilaadinayay wax Puntland ku midaysan tahay isla mar ahaantaasna hor socod keeni kara marka farasku waa gamaan hore u socda midda kale waa gamaanka kaliya oo indhaha hadii laga xiro hataa hooyadiis aan lagu karin marka la rabo in fertilization loo sameeyo hadii indhaha laga xiro hataa hooyadii wuu yaqaanaa ma yeelo farasku meelaha kale ku qarafta doqon maaha he's not a fool marka uu aqli badan yahay waa very smart ragayaga iyo dadkayaga iyo Puntland dadkeedana waxaan ku aqaanaa smart people so they were very smart waa inaan hore u socono anagoo maskaxdeena ka shaqaysiinayna taasa macnaha fikirkaygu ahaa dabadeed tartankii markuu dhacay oo meeshii la isugu yimid habeennimadii war baa la isoo siiyay nin golihii kamid ahaa baa isoo wacay wuxuu yiri asli calankii astaanta baa adiga ku guuleystay waxaan ma sha Allah anigu waxaan leeyahay ma aha wax umadu leedahay fikirkayguna wuxuu ahaa wax umadu leedahay inay meesha ka soo baxaan haddana subaxii buu isoo wacay wuxuu igu yiri calankii iyo astaantu inay isu ekaadaan baa la diidayo calankaaga dhiisha dhexda ku jirta astaantana dhiil baa dhexda ku jirta marka waxa la dhahay calanku markii waxa la is siiyay shuruudaha la is siiyay waa inuu 4 item ka koobnaan karo ama color ha noqdeen ama wax kale oo maxay ahayd muujinaya astaan ha noqdeen waa inuu 4 shay ka koobnaan karo marka aan waxaan qaatay saddexda midab iyo dhiisha waxaa jira calanka blanka hadda aan haysano laba wiil baa ku guuleystay oo iyagu isku waqtina soo xareeyay isku midabna ahaa habeenkii halkaas ay tahay uu madaxweynaha Puntland shaadooyinka nasiina anay jaacaba shaadooyinka la sii wiilka kale ma aan arag oo ima ay saamixin inaan la kulmo isaga wali laakiin waxaan aqaanaa jaacab waxa ninkii iyo wiilkaas baa waxa la yiri calanka blankaas aan qaadano astaantana tan oo midabadii kale oo dhan calanka kala mid ah laakiin dhiisho ay dheeri ku tahay aynu qaadano ويسوي وحي رسالة لقامي وحنقول fine no problem أنا وحي وحرن معها قان كذا أنا أقول مليه ومضى عليه هذا النقطة حتى قفك أنكو سوا بحين fine because أنا أقول مرة وإحنا كم مدونين
horta wax dumar hal gabar lagu daray guddigii waxay ururiyeen 742 tartame calamadii iyo astaamihii ay keeneen iyo heesihii bay ururiyeen markay ururiyeen waa la present gareeyay waxaa lagu soo sameeyay long list bay ahaayeen short list la soo sameeyay short list markii la soo sameeyay macnaha liiskii la soo koobay la soo yareeyay haddana liiskii la soo yareeyay baa la sii kala doortay waxa isu soo baxay oo ismaaj gareeyay calanka iyo astaanta aynu hadda leenahay ayaa ismaaj gareeyay intii kale macnaha midba waxbaa lagaga tegay dabadeed intaasaa la go'aamiyey golaha la geeyey la saxiixay taasay asli ku noqotay gabadha heshay astaanta Puntland sidaasay ku noqotay asli calankii Puntland ku yaal cirifkaagii calankii Puntland ku yaal cirifkaagii cadaanka ka muuqda caliyoona badweeye awaale